hadda waqtiga qadarka halkan oo kale barbarooniga ku beeran kan saan u jeedaan waa gaduud barbaroonigan sida caadiga ah isaga wuxuu ku baxaa 2 bilood marka hadda kan waa wada gaduud marka koobaad cagaar ayuu yahay cagaarku waa iska bedelaya gaduud iska bedelaya hadda midna midkan oo kale dhinacaan gaduudkiya ka soo bilaabanaya halkan waa cagaar sidaan oo kale noqon doona gebigiis wada gaduud buu noqon doonaa علومة beeraha waxaan barashadeeda bilaabay muddo 5 sano ka hor ah inaan ku shaqeeyana waxaan bilaabay muddo 2 sano ka hor ah jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaan ka daraasay علومة beeraha iyo deegaanka barashadiisa wuxuu ugu weynaa oo igu qasbay waxay ahayd sidaan aaminsanahay laba shay waa midda koobaad ee tawfiiq Ilaahay bay ahayd in anigu maxaan ku yiraahdaa aan jeclaa markasta xoogaa khayraadka wadanka iyo waxyaabaha khuseeya inaan barto qodobka labaad oo aad igu dhiirigeliyay wuxuu yahay waxay ahayd dhiirigelin weyn oo aan ka helay hooyaday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo علومة beeraha yani si guud beerana ka shaqeynaa waxaan bilownay maadaama aan ahaa arday jaamacadda ummadda wax ka bartay yaqaan علومة beeraha iyo deegaanka isla markaana maxaan ku yiraahdaa faham badan ka haysta ama aqoon u leh sida wax loo soo saaro ayaa waagii karoonaha 2020 bilowgeedii waxaa Muqdisho ka dhacday in qudaarta badankeed laga waayo laana qudaarta qaarkeed dibadaha ka imaanaysay marka waxay ila noqotay wax aad iyo aad loola yaabay in yaanyo ay ka imaanayso markaas dibadda haddana maadaama isku socodkii wax kasta ay dhamaadeen waa ay joogsatay waa imaan weysay waxaa dhacday marka anagu inaan ku fikirno inaan halkan ka bilowno Ilaahay baana waafajiyay waan ku beernay yaayadu marka hore dibadda inagu imaanaysa laakiin halkaan si maxaan ku yiraahdaa fiican oo soo baxday marka si guud waxa ugu dhiirigeliyay baahiyaha dadka ayaan dareensanaa waxa adiba waxaan xasuustaa yani luqad ganacsi markaan ku hadlo product adiga aad soo saartay marka qofka aad u geyso markasta kaaga maad celinayo wax mucjiso ah oo maleynay beer meelaan inay ka jirto marka aan maxaan ku yiraahdaa wax soo saarnay hadda barbaroonigan dibadda laga keenay jiray maama nu geynay waxaan ku yiri maadaama dibadda ka keenay jirta halkaan ku beernay waa tana maama soo dhow qiimo ka hooseena waa laga siiyay meelo badan ka soo shaqeeyay weligay shaqo aan inta qof u qabtay oo haddana igaga mahad celinayo inaan shaqadaas u qabto beer ka hor ma aan arag waxaan wadanka kama bixi karana oo aad loogu badan dadka wadanka wala dhacsiiyay ma aqaan marka ba ideology la maalgeliya ba fikir dadku wacyilaan ay u qaateena ma aqaan waxa Ameerika ka yimideen Soomaaliya wax ka bixi kara iyo waxaan ka bixi karin boqolkiiba macnaha waxaan ka bixi karin yar aniga hadda waxaan iraahdaa baradhada iyo maxaa ku iraahdaa iyo garlic ama tonta labadaas dhig kara wadanka inay ka baxaan xoogaa waa culusta laakiin wadanka wax aan ka bixi karin hadii lagu abuuro ma jiraan filliga beeraha meel kasta laga qiimeeyo hadii fursad ganacsi yani il ganacsi hadii lagu fiirsho cid ka shaqeysata male marka soo aniga kaliya meesha waxba ka soo saari kara boqolaal qof oo waxa loo baahan yahay iyo kumanaan kun oo qof oo dawladda iyo ganacsato inta maal gashato shaqooyinkan meel gaarsiiya